بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال دغيستيال meel walba aad nagala saan qaadaysaan ku soo dhawaada Somali My TV iyo waliba Somali My TV leema aha waxa kale naga daawan kartaan qofka jooga Europe ilaa Africa S24 TV ayaa naga daawan kartaan maanta studio-heena barnaamijkeenan waxa aanu ku soo qaadan doonaa ama aanu ku eegi doonaa faa'iidada ay leedahay iyo ama dhibka ay leedahay wadista gawaarida qofka uu wadi doono gawaarida maxaase laga doonayaa dad badan ayaa arkaysa markay gawaarida ay wadaan ayagoo raashin cunaya ayagoo waliba telefoonka ku mashquulsan haywiyada saaran ha u badnaadeen dumarkeena waxaad arkaysaa ayagoo telefoonka hijaabka hoostiisa intay gastaan ayagoo iska sheekaysanaya wadankan aanu ku joognahayna aanu deganahay Mareykanka runtii gawaaridiisa aad bay u fara badan yihiin haywiyada aad bay shilalka ugu badan waa wadankan gobolkan Minnesota kaas ahaan shilal aad u fara badan ayaa lagu galaa mar walba xilli walba samaradan oo kale ama winterka aad bay u badan yihiin maanta waxa studio-heena marti inoogu ah aanu ku casunnay maamule runtii ka shaqeeya oo ku takhasusay barista gawaarida Soomaalida iyo waliba dadka kalena uu barayo oo la yiraahdo Maxamed Axmed Alamo Driving School ayaanu rabnaa inaan ku soo dhaweyno studio-heena si uu inooga hadlo arrimahaasi iyo sida laga doonayo hadii ay yiraahdo qofka oo gaariga wadi doona maxaase laga rabaa Maxamed muxuusa sameyn doona Maxamed ayaanu ka wareysan doona faa'iidada iyo khasaarada gawaar wadista ay leedahay maadaama uu macallin uu ku takhasusay u yahay Maxamed marka hore ku soo dhawaad Somali My TV iyo waliba S24 TV Assalamu alaykum waa ku mahadsantahay Liban aad baad mahadsantahay waa mataqaanka adigu sameysay Somali My TV aadan kaaga mahad celinaya waa gartay Maxamed runtii aad baad u mahadsantahay dad badan waxa laga yaabaa maamooyinka ha u badnaadeen maanta inay TV-ga ay fadhiyaan oo ay leeyihiin leeyahay Maxamed waa naqaana laakiin muxuu noo sheegi doonaa maanta faa'iido badan aan ka faa'iideysano wadista gawaarida sax waxaan rabnaa inaad noo sheegtid faa'iidada ay leedahay qofka gawaariga intuu wadanayo meel ku tagayo iyo khasaarahana ay leedahay iyo qofka gawaariga rabo inuu barto maxaase laga doonayaana iyo noo sheeg Maxamed faa'iidada gawaarida sida hore u sheegtay Liban waa runtaada wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan iyo khasaaro badan haddaan ka hadalno faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mid ah qofkii in shaqo helo qofkii waxaa ka mid ah inuu meeshuu doono aadi karo inuu soo adeegan karo inuu family booqan karo qofkii waxaa laga yaabaa hadda qof joogo kale register ama qof joogo kale meel fog qofkii inuusan aadi karin because gaari ma wadi karo so marka faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mid ah qofkii inuu shaqo heli karo kow oo ilmihiisii meel geysan karo dhakhtar geysan karo ilmihiisii iskuulka ka soo qaadan karo haddii dhib dhaco hadduu qof xanuunsado iyo dadkii wixii laisku xirnaanin inaad qof ku xirnaanin oo adi freedom gaarkaada adi aad u leedahay meeshaad doonto oo markaad doonto aad aadi kartid waa gartay laakiin faa'iidada taas way waa runtii faa'iido aad u wanaagsan qofka hadduu intuu gurigiis ka tago gaarigiisa oo wato asagoo nabadna ku soo noqdo sax badanaa laakiin Maxamed waxaanu aragnaa gawaarida dadka wada shilal badan ayay galaan sax shilalkaasi qofka uu galayo maxaa u sababa maxaa lagu gali karaa shilalka waxyaabo badan ayaa keeni kara waa gartay waxaa ugu horeeya qofka inuu mashquulo waa gartay qofku wuxuu ku mashquuli karaa waxyaabo badan wuxuu ku mashquuli karaa wax outside oo gaariga ka baxsan wuxuu ku mashquuli karaa wax inside gaariga waxaa mashquulka ugu weyn ka imaadaa qof dhinac kula fadhiyo inuu kula hadlo inuu ku taabto siiba dadkii yani hadduu qofkii da'yar yahay yani qof kale in sheeko la galo then nalkii tareenkii nalkii gaduudan staabkii qofkii yani inuu dhaafo horta waa tan gudaha banaanka ka imaan karta tan yani qofka kale wuxuu ku mashquuli karaa asagoo eegaya shil dhacay oo kale ama asoo eegaya shila inta ka dhacay shilkii qofka ku baxaya and then markii gaarigiisii ma controli karo waxaa kaloo shilka keeni kara qofka hadduu xawaare xoog la ku socdo oo meesha lagu talagelin meel 10 ku qoran tahay ama waa meeshii waa goolad yani qofkii wuxuu ku soo galay 40 ama wuxuu ku soo galay 30 meeshiina waxaa ku qoran 10 ama waxay noqon kartaa exit qofka wadada haday exit leedahay waa lagu sheegaya calaamad jaala ku dhagan exit 10 mile ama exit 15 mile laakiin qofkii hadduu ku soo galo 55 mile per hour marka shilalka taasna way keeni kartaa iyo qofkii oo texting sameynaya ama website fiirinaya ama telefoonka ku mashquulsan sidaas sheegtay waa gartay laakiin qofka uu rabo howlahaasi oo dhan iskuulada runtii way baraan Soomaa every school wuu baraa
inuu ka digtoonaado inuusan waxaa ka digtoonaado inkastoo hadda aan isleeyahay mararka badan dadkeenaysan iskuul imaanin oo qof walaalaa baraya ama qof saaxiibaa baraya ama qof yar lacag siyaanaa baraya so marka taa dhibaato weyn waxa ugu weyn shilalka hadda dadkeena marka laga hadlo ma aha dadyow kale waxa ugu weyn shilalka u keena annaga khamri ma cabno dadkan khamri cabaan qofka khamri hadduu cabo wuxuu gelayaa shilal waaweyn daroogadoo kale qofka shilal waaweyn uu gelayaa laakiin annaga waxaa boqolkiiba marka la eego in badan 90 yacni qof diin le yacni qof waxaa laakiin waxaan on the other side wax yar aan fududaysanaa oo simple qofkii iskuul imaan kara gacantii loo dejin kara gaaskii breegii jiiradii steerinkii wixii dhan la tusi kara marka dadka badanaa waxaa u badanba ayagoo saaxiibkooda baray ay jidkii ay korayaan laysankiina way iska soo qaadanayaan laakiin shilalkii shuruudihii laga rabay ma aysan maraan fikradda ugu weyn qofka waxa waaye haddii xataa license soo qaado qofku meesha uu soo qaadi karaa waxaan waa system qofkii inuu meeshii yani wixii soo qaado laakiin ani qofkaan ani wax baro personal ahaan alama driving school qofkay wax barto waxaan mar walba yani aan fiiriyaa ma aha licenka ilmaa wadaa qof ad soo qaadaysaa qofaa wadada maraya gaariyaa wadada maraya tareenaa wadada maraya basaa kula wadaagaya so marka qofkii yani in waxaan u leeyay xirfad yani shuruucdii garanayo xuquuqdiisii garanayo xuquuqda laga leeyana uu garanayo so marka aniga intaasa mar walba ku dadaalaa ma fiiriyo just kale license waa wax meesha ku jira laakiin waxaan focuska badan ugu weyn aan saaro waxa waa yani qofka inuu ku dadaalo xuquuqdii faraajadii ka istaagidii dadka riigada dadka inuusan taabanin inuu tareenka meeshiisii ku istaagin yani waxyaabo badan oo hadda inta maanta lagu soo koobi karayn oo buuggii waxaan u barnaa class ahaan permit ahaan qofkii inuu imaado ha yaraado qofka adult waan samaynaa qofka weyn kulli inuu imaado qofkii inuu barto waxaan yani waxba waa lagaa leeyahy waxna waad leedahay waa gartay laakiin dadka waaweyn u baahan inay bartaanna gawaarida صح marka gawaarida runtii odayaal fara badan iska jira oo ay rabaan maalin dhaweeto maraan soo booqanay iskuulkaaga waxaa dhex fadhiyay aan u jeednay odayaasha kamid ah Sheekh Sacad baa iska dhex fadhiyay oo asagii gaariga wada oo laftirkiisa ayaad arkaysaa marka hawlahaasi oo dhan dadku marka odayaashana marka waad ka kaalmaysan oo faleynaya maxaa absolutely inta oday badan inta yani aan u soo qaaday boqolkiiba 30 yani dad inta adult ku imaada dadkeena waad garanaysaa qof ilmo wataa yani ma aha macnaheeda qofkii gaar waxaan waxay ku xiran tahay shakhsiga inuu yani wixii yani meeshii xuquuqdii la baro wax la baro qofka unbay ku xiran tahay qofka markaad aragtana oo la shaqaysa in badan waxa example ah Sheekh Sacad wuxuu yimi maalin uu yimi Maxamed wuxuu dhahay aniga weligay imtixaan ma aadin marka gaari waan wadaa laakiin waxaan rabaa wax imtixaankii iyo systemkii yani qofkii hadduu kula tashanayo intuu meesha iska aadi lahaa marka wuxuu yiri Maxamedow yani waxaan rabaa inaad arrintan adaa wax u leh inaad ila shaqaysid meeshaana aad ila aadid marka kadib in badan aan barnay la baray wixii la tusay systemkii la tusay parkingkii 5 noocood 6 noocood 7 noocood parking laga raba wixii dhan marka la tusay yani qofkii meeshii one waygii two waygii wadooyinka calaamaysan wadooyinkan calaamaysnayn xuquuqda laga leeyay xuquuqdu leey then uu soo qaatay anigana I'm glad in I'm part of it ana aadiyad waxyaalaha dadku ay marka ay gawaarida ay baranayaan imtixaanada dadka badanaa Soomaalida aad bay ugu soo dhacaan sax iskuul ha ahaadaan ama iskuul yaysan aadin imtixaankii af ingiriis iyo af Soomaali baa lagu galaa sax marka waxyaalaha badan ay ku dhacaan imtixaankii markay barmadkii ay soo qaataan wadistii gawaaridii parkingkii waxay ku dhacaan waxyaalaha ugu xun dadka ay ku dhacaan maxaa kamid ah Maxamed wallahi waxyaabaha aniga shakhsiyan every day gaari qof imtixaan waan geeyaa maalin haddaan gelin maalinta kale qof imtixaan waan geeyaa waxyaabaha dadka ugu badan lagu rido qofkii ii imaada wuxuu idhahay Maxamed parkingka i dhibaya but runta marka laga hadlo ma aha waxa dadka lagu rido parkingka ma aha waxa dadka lagu rido waa shuruucda waxa dadka lagu rido waa yani waa wada qalad inaad gasho 5 shay yani nal gaduudan hadaad gooyso hadaad leenkii bedelan weyso hadaad attentionkii bixin weyso hadaad qoor fiirin weyso hadaad faraajo daari weyso hadaad dadkii riigooyinkii inkastoo parkingkana meeshii ku jiro laga rabo 5 noocood parking laakiin waxa pointska badan la fiirinayo ugu weyn waa ilaalada qofka inuu ilaalis leeyahay inuu attention leeyahay waxa ugu yani ugu badan dadka lagu rida laakiin anigu waagan
toban sano ka hor markaan driverlicense qaadanaya waxaa Sax. dadka badan ay ka cabanayeen Sax. baarkinkan ma arkin oo gadaal loo soo galayo Sax, 90 degrees parking, stayada uphill. qaarkood ma laha Sax. marka statekan runtii aad bay ugu badan tahay Sax. in imtixaankana uu ku jiraan filaya maxamed Oo, afka marka ku jira. kaasi sidee ugu sahlan oo lagu samayn karaa maxaasena marka ay dadka ku heli karaan isleedahay wallaahi runta haddaan ka hadlo 90 degrees parking ani qofka yimaada qof yacni qofba technique wax ku baro leey Waaga. aniga technicadeeda oo qofka 90 degreeska aan ku baro yacni waa simple waa 4 step intaad ku aadinaysaa intaad imaanaysaa waxaad arkaysaa qofkii asoo gaariga ku jira asoona og sida gaarigii loo controlo dhanka gaariga aadaya dhankuu qofka u leexanaya yacni easy step yacni qofkii inuusan maamaha for example ii timid about 2 week ago waxay igu tiri maxamedow 3 bilaa parking lay soo baray waxay u qaadatay maamadaa inaan gaari baro yacni inaanan dhammayn 1 hour 2 hours Waaga. in maamadii licenkii ay ku soo qaadato ku barato parkingkii dhan 5 noocba inay ku barato parkingkii intay yacni 3 bil 3 bil waa 3 bil is long Aad iyo aad. long waa rubac year nuskiisa ku dhawaada marka dadkii caruur bay leeyihiin sax gaaridii waa la soo bartay sax gawaaridu badanaa marka aad fiirisid caruurta soomaalidu aad uguma taxdiraan absolutely marka dhanka sharci ahaanna Sax. booliista sax maxaase kaga imaan karaad isleedahay maxamedo marka arrimahaasi dadka ma u sheegtaan markaa gawaarida aad baraysaan absolutely xirashada suunka horta qof walba waa laga rabaa hore fadhi gaariga ama gadaal fadhi Waaga. in badan dadkeena hadda waxay aaminsan yihiin yacni markaad hore fadhiso gadaal aad fadhidid markaad hore fadhiso unbaad xirashada xirmaysaa. suunka lagaa rabaa Waa gartay. maya Waaga. waa hore fadhi gadaal fadhi inkastoo suun ka bannaan yahay gadaal waa qasabay kugu tahay inaad suunkaa xirato haddii kale xaq wuxuu booliisku leeyahy Inuu in ticket- ticket ku siiyo waa gartay taa waa mid xirashada suunka ma aha ticketka keliya anaga waxaa laga yaaba inaan xirano just ticketka waa gartay يعني إن بدن حنبارسين وحكم إذا يعني إنه كبدبادني هذه. إنه إله بدبادة اللي بد هذه. أنت حد يعني أكتر هذا كترسن هذه. يعني إن قفكي هدوس نسون كحرنين دريش دازوك بحياة أديك ما أها درولك حكي ما كتاب بنانك بنانك. يعني وحلاقي أبا نين عبسن حلاقي أبا نين دروجسن نين ولقي قاري وذن برمت كوذا قاسكي سوق هذا كرا يعني إن قفكا يعني especially free waa daa ku socoto gaariga ujeedada laga leeyahay seat beltiga waa qofka inuu gudaha ku jiro haddaad mar banaanka u baxdo hadda waad arki free waa daa ku socoto gawaari 55 ku socoto kugu dhacda not only gaarigaada waxa outside-ka ka imaanaya yani aad ku dili kara aadna ku yani ku dhaawici kara aad iyo aad laakiin maxamed waa taa waa fahnay suunkii Sax. dadka waa iska family badan yihiin ilmaha ilmihii ilmihii caruurtii marka gawaaridii badanaa ma qaado baanka ugu weyn 8 Sax. kursi waxaas uu qaadaa Sax. marka sidee marka loogu samayn kara haddaad rabtid inaad caruurtii oo dhan aad soo kaxaysid aad geysid meel aad wadi da-ada laga rabo horta Okay. cuniga intee in da-diisu ay gaari doonta ama ay ka dhammaan doonta suunka xiritaankiisaba maxamed xirashada suunka markaan ka hadlayno ilmaha yar waxay soo maraan 4 step stepka ugu horeeya qofka waa mulo waa cunug hadda dhashay isbitaalka laftirkiisa kuma soo saarayaan cunuga adoonan car seat wadanin waa gartay ujeedada ku jirto waxa waaye cunuga markuu ka yar yahay 1 sano kana yar yahay 20 pound waa gartay waa inaad afkiisa gadaal u jeediso waa gartay markuu 1 sano gaaro iyo 20 pound gaarana cunuga waa inaad hore u soo jeediso waa gartay intaa markaad hore u soo jeediso haddana markuu 4 sano gaaro cunugii waa cunug roon aad iyo 40 ilaa 80 pound uu dhan yihi aad yes markaasna waxaa laga rabaa inaad kursigii ka bedesho booster seat Booster sida u soo qaado. aad ku xirtid Waa gartay. boosterka ujeedada ku jirto waxay dhahaan booster waxaa la wax kor kuu soo qaada Aad. boost ku siiya aad iyo hadduusan cunuga booster wadanin sunkiyaa qoorta ka maraya aad iyo qoorta marka yani suunkii cunugii ceejo suunkiyaaba dilaya laftirkiisa aad lahayd yani ku ilaali suunkiyaaba wax u naqanaya dhibaato marka booster markuu wato cunuga xabadkuu ku aadayaa ilaa wuxuu isticmaalayaa boosterka 8 years ka gaaro ilaa 8 years ago ilaa 8 years ka gaaro Okay. 8 years markuu gaaro wuxuu isticmaali karaa car seat wax la dhaho Car kan seat. adigaad xiratid anaan xirto mar kursiga gaariga caadiga ku kursiga fadhiisan. caadiga waa gartay 8 ilaa 12 na ma imaan karo hore Hore ma soo kuraasta hore ma Gadaal soo ma kori fadhiisan karaa. waa inuu gadaal fadhiyo waxa i horeya sometimes gaariyaan baraa magaaladan ku socdaa cunuga 4 sano jira hore fuulaad arki waa gartay you know yani
wuu ku hurayaa markaan dhaha waan istaajiyaa waxaan maraayadaan hoos u dhigaa yani qofkii waa qof walaalka waxa ka imaanayaad fahmi not only in cunugaa hadduu hore saaran yahay 4 sano jiro in ticket lagu siiyo maahane of course child servicena way soo raacayaan yani ticketkaa wuxuu ku xirmayaa child service ku xirmayaa maalinta kale haddii 2-3 saas oo kale lagu qabto dan mar kale waxaa imaanaysa ilmihiin lagaa qaadiyo sax qalbi ku janjaaray waxaan la jiirgoy hadalkiina iga jaray jooglaantaada waa hagaag daawadayaal dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan Somali My TV waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeeni oo ku saabsanaa wadista gawaarida faa'iidada ay leedahay iyo khatarta ay leedahay qofka gawaarida uu wadayo shuruudaha laga rabo iyo waliba haddaad caruur haysatid caruurtaada waxyaalaha looga baahan yahay waxaa stuudiyaheena aanu ku casunay Maxamed Axmed oo ah maamulaha Alamo Driving School oo runtii wadada wuxuuna ku yaraa Nicolet aad wada garanaysaan dhinac mar walbana jaaliyada Soomaaliyeed oo ka qabtiro dhinacaasi Maxamed wali barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa sax runtii waxaa jira marka aad fiirisid wadooyinkan aad maraysid sax wadooyinkan waxaa loo sameeyey meel gawaarida ay ku socdaan absolutely sax oo aanan kan kale iska ilaalisid sax marka badanaa dadka marka aad fiirisid gawaarida ay wadaan hal gacan ayay ku wadaan sax marka gacantaasi halka gacan ku wada steerinka ma laba gacan loo qabtaa mise halka gacan way ku filan tahay oo wadadana waad ka baxaysaa gawaariga aad ku wada arkaysid wadada ka baxayaan marka maxaad dhihi lahayd marka taasna aniga waxaan dhihi lahaa haddii permit-kan way ku jirtaa qof walba permit soo mara wuu arkaa su-aashan steersada waa inaa u qabsataa waxay dhahaan saacadda markay tahay 8 to 4 ama 9 to 3 ma aha 9 mana aha 8 marka waa laba gacan qofku wuxuu ugu wadaa yani controlad haysata more control parhole hadduu ku dhaco gaariga yani meel goda yani jug gacantaadu kaa qaadi karaa ama kaba daranba 12 o'clock qofka qabsada airbag-yu xiraya airbag yani ma soo baxay gacantaadiya more danger qofkiiba u naqanba so markuu qofka aid haysto airbag uu soo bixi karaa protection wax walba dhici kara yani qofku haddaad imtixaanka tagtana hadda way kugu rideen hal gacan haddaad gaari ku wado marka kan aase maamul ahaan Alamo Driving School sax maxaad jaaliyada Soomaaliyeed ku daawanaysaa sax ay haddii ay ku yimaadaan kuwii hore u sii bartay kuwa kale badan marka maxaa marka sidee kaaga faa'iidi karaan marka Maxamed oo aad u sheegi lahayd maanta jaaliyada Soomaaliyeed runtii jaaliyo badan waa caawiya haato Oromo haato Ethiopian but mar qofka dadkiisa yani dadkaada yani marka qofka kala baaso mar qofkaada yani Soomaali ahaan u baaso way kala duwantay waxa igu kala duwantay yani qofkaada markuu soo baaso waxa dhigi kartaa yani qofkan wax baad bartay yani shaqo heli karaa iskuul oo aadi karaa walaalu soo booqan karaa ilmuhu dhakhtar geysan karaa يعني وكدم قنيسة of course وكدم قنيسة يعني وح يقول فرحات بدن قفك مركو صوباسو يعني قفك الله شقيسو وح الله سميسو إن بدن يعني إن صومالي بدن هذا معامل بدن أو معاميش على ما driving school إجرانية يعني قف بدن إن بدن دتك وح يسود درا قف قف داورني يركانا سفي عن وحكو برية قف كان كل الشقينية قف كانوا تك كي بدنا بقول كي بس سجاشن يعني وحكي ماذا إن قف كار كي قاضو qof kale u dhiibo dhaho war min fadlan inuu ninkan lugta meelaha kale iskaga goynin yani u tag uu kula shaqaynaya gaarin uu kula soo qaadaya uu ku baraya license uu kula raadin waa gartay Maxamed runtii dhankaasi haddaan kaga soo laabano sax kuwaasi waxay ahaan waxa aad baraysaan iyo waliba safety qofka wixii laga rabo Allah ilaa dadka maanta way ka faa'iideysteen sax qofka uu rabo inuu barto sax gawaarida sax saacadaha uu u baahan yahay intee saacad ayaa lagu baran karaa ma week baan ku baran karaa sax mise hal maalin aan ku baran karaa gaarigii barmidka aan ku soo qaadan karaa total ahaan beginning ila end oo aniga aan isku filnaado sax maxaa se laga rabaa marka ii sheeg bal mar walba
qofka waxaan aniga markuu xafiiska yimaado qofka ani over the phone waxaan ku dhahaa xafiiska imow yacni su-aalaad qabtaa qof walba yacni waa si qof waa bilow hadduu bilaabaya qof meel dhexu jooga qof waa qof gaarigiisa wato soo dhacay ama iskuul loo soo diray yacni in lala shaqeeya raba macna qofkay ku xirantay qof walba sababta aan u dhahana xafiiska imow ma aha inaan qofkii soo lugooynayo in yacni qofkii aad ogaato muxuu rabaa maxaad ka caawin kartaa maxaadna yacni ku filan waxaa laga yaabaa qofkii inay wax yar ku filan yihiin ama qofkii inuu bilow yahay aan dhaho 10 saac qaado 8 saac qaado hadduu qofkii 6 saac qaato yacni aan baro 6 saac gaariya qofkii 6 saac hadda gaari waa ogta qof walba inta hadda jooga magaaladan wuu ogi in 6 saac gaari lagu baranaynin hadduu 6 saac waxay ka taraysaa hadduu qof kaalmeeyo qofkii haysto meel ka geeyo soo barbaro hadduu haysto qofkan aniga waan la taliyaa waxaan dhahaa hadduu qof kale xataa la wadi karaynin waxaan ku dhahaa saacadahaada wax ku darso badso si yacni qofkii kale aad la shaqayso already lacag waad soo khasaarisay yacni dhexdaa ku dhaafin يعني وحي سيدا ماستر وحا لغا إنا أفر ساعة وقدروا وقاريقي قفكي لقبصد إسلا مركي أما قف ولا الله وذي كرو يعني انت أصنوان أركي لكن قفك مر والبوحان لتليا 6 ساعة دو بربردها كدقانين ساعدها بطسو مركا كدبنا قفكي عاوني مركا راتسو أنا إلا تشو قفك لما الله وذي كرائي ده كنت أنا قفك وح يعني there's no وحان لعقت معها وحان قفك وكوريا of course ودو الشيء يسا وحد ليس ورنيه وحان نفط هذه قفك نفتي سلامة دي كرو لو بقولي كونتن أما بقولي كونتن لو ما قياس كر يعني مليون حتى لو ما قياس كر يعني قفك إنا هذا ور أنت أكو درسو مركا وحباكوها جاجية واقرتي وهجاك داوديال دقيستيال إيمكنا وحان جعلها إن آن إذا كسر دويو برنامج runtii gubadista gawaarida maxamed oo waliba galaaska asagoo ardaydii wax baraya sabuurada asagoo taagan wixii uu sameynaya iyo waliba barnaamijyo kale oo ku saabsan wadista gawaaridaasi Alamo Driving School aan booqanay ayaanu rabnaa in ay nala daawataan daawasho wanaagsan Marianne. Hey, hello. Happy birthday. Thank you. How you doing? I'm good. How are you? Good, thank you. It's your birthday. We need to go out. Oh my god, I'm thinking about to get drive lesson. I'm not good to go out today. What? No, I know the school. Let me see. Which school? If I can remember. It's Alamo Driving School. They teach how to drive? Yeah, it's really good school. That's where I got my license. Oh my god, do you have their number? Yeah, let me find it. I know I have it somewhere. Oh, you have it. Are they open right now? Yeah. Alamo Driving School. Mohammed. Is he Somali? Yeah, I think so. Okay, let me call them. Alamo Driving School? Hello, is this Mohammed? Yeah, this is Mohammed. Are you Somali? How are you? fiican walaal alxamdulilah caafimaad waa fiican walaal waxaan rabay in la iga caawiyo driving schoolka aan gaarin lay baro وهذا ما كنت وعدانك soo wacday alamo laakiin waxaan rabay inaan ku sheego hadda intee maraysaa maanta gaar bilaabaysaa waxba ku bilaaban intee barmad baan haystaa bad maxay tahay wali waxa ma ka xeenin okay markaas waxaan kula talinayaa ilaa 8 saac 6 saac dibaanin dakhligaada iyo waxa ku xiran tahay intaad rabtid waxaan kula talinayaa 8 saac ilaa 10 saac inaad qaadato waa mahadsantahay walaal xafiiskiina hadda ma furan yahay xafiisku wuxuu furan yahay Monday ilaa Saturday 11 am ilaa 5 pm waa imaan kartaa galabtiina aha jooga insha Allah duulayra hadda ma ku imaan karnaa hadda waa imaan kartaa kamareen waan joognaa waan furanahay Hi, thank you. Oh my god, we have to go right now. Yeah, he told me they're open right now, so I can go right now. Let's go. Can you drive me? Yeah, let's go. Thank you. Let's go. Hi, hello. Hi guys. How are you doing? Assalamu alaikum. Hi. Good caafimaadka. waxaan soo wacay Maxamed aa soo wacday sax? Maxamed. Maxamed wuu joogaa. Waxaan idin siinayaa application-kan. Dan wuxuu ku saabsan yahay maxay ay qofkii in uu
processkii la geliyo si loo siiyo ballamihii then hourskii ugu baahan yahay qofka maxay ahayd waa inuu applicationkan buuxiyaa markaa buuxisid then maxamed aa u tegi kartaa isagana wuxuu ku siin ballamihii practicekii everything Okay, warqadan inaan buuxiyo waa in first. applicationka Okay, buuxisid ID-gaaga la soo baxdid Okay. yeah. Thank you so much. You can move to Mohammed, he's in there. Oh, okay, where? Alright, thanks. السلام عليكم Calaykum salaam. ورحمة الله gaari lahay ma soo fadhiis Aniga rabay no ayadu way haysataa already. Adaa siisa hadda ka hor. okay So, waxaan it's been a rabay while hi Mercedes Hi, Mohammed. very good in waxaan rabay warqadii waan soo buuxiyay saacadaha inay qabto badanta. صح ballanta okay computerkiina ku jiro magaca Mariam. Mariana okay marka maxaa meeqa saacadaad saxiixatay hadda 8 saacan sayaxay. 8 saacadood hore gaari ma wada mise wax yar Wax yar. Wax taas badan. okay so marka waxaan kula talin 8 saac iyo imtixaankii ku darso 8 saac Okay. waaye jirooyinkii haaweydii freewaydii marka schedule-kaadan soo ogi Schedule-kayga hadda off aan hayo. Monday to Friday Saturday Sunday waan shaqeynaa Ha, laba wiiga fasaxaan haystaa inaan ka faa'iidaystaan rabaa. good very good spring break good make sure saaxiibadaada inaan u sheegto ayadista kugu soo sheegto oo kale Insha and Allah. see Facebook Google everywhere we're all over the place so marka balantaada is Monday Okay. and then talaado iyo arbaco iyo khamiis waxaa lagu imaanayaa 10 am ilaa 12 pm ama Idinka aniga imaanaysa. ama waxaan ku imaanaya gabar kale ku imaanaysa labadeena mid ku imaanaya Okay. so marka maalintaas make sure inaad haysatid rasiidkaada iyo permitkaada ana soo hilmaamay Hay insha Allah. okay aada maadsantahay and then anaga ku baranayso don't worry waxyaabo adag we'll try inaan kaaga dhigno simple and easy hadduu ilaahay Okay. aada maadsantahay walaal waa hagaag daawadayaal dhegaystayaal waxaan filayaa inaad si fiican aad uga hesheen videogaasi oo ku saabsanaa alamo driving school iyo wadista gawaarida shuruudaha laga rabo iyo weliba gabdho waxaad arkayseen oo dhalashadoodii ay ahayd aada u faraxsanaa mid ka mid ah iyadoo runtii ay rabtay maalinta dhalashadeeda inay gawaari ay barato ay saaxiibteedana soo kaxaysay meeshaasi ay keentay iyadoo aada u faraxsanna ay la kulantay maxamed oo maanta stuudio nagula fadhiyo weli barnaamijkii ayaanu gudaha ku jirnaa maxmed runtii mar labaad runtii dadka waxaan filayaa inay barnaamijkaasi ay mar dhowna ay maaragtay meesha dad badan ku imaan doona samara lagu jiraa youth badana runtii barid u baahan in gawaarida la baro maamooyinkooda ay ku keeni doonaan taasna waan ku weydiin doonaa dhinacaas youthka intaanan gelin waxaa jirta dadku badanaa markay gawaarida ay wadaan oo ay galayaan highwayada oo kale waxay badanaa ay fiiriyaan haadadka muraayadaha dadka ka fiiriyaan sharcigana waxaa ku qoran ma aqaan qoorta in la jibiyo marka muraayadahaasi maxaa loo sameeyey haddii aan muraayada saa u sameey aan u fiiriyo safetygu siduu yahay maxaa ku jira gaarigaada wuxuu leeyahay 3 miraayo waa gartay mid dhexday ku taalaa labana geeskay ku taalaa midda dhexda ku taala waxaa loogu talagalay markaad freeway ku jirto inaad ogaatid gaariga gadaashaada socdo intuu kugu soo dhow yahay safetygaada meeqaa gadaal kaa jirta haddaad ambulanceta maqasho ama booliiska maqasho emergency vehicle waxaa loo yaqaana yacni dhankeed u bixi dhankuu kaa jiraa yacni inaad ogaatid laakiin fikradda ugu qaldan ani dadkeena ku arko qofkii wuxuu rabaa inuu miraayadan fiiriyo u gadaal u laabto yacni gaarigii gadaal u wada ama parking galo yacni qofka mar walba haddaad gaariga reverse geyso waa inaad gacanta gadaal saarataa qoortaadana gadaal afarta dhinac eegtaa dhinacaan eegtaa dhinaca gadaal dhinaca midig dhinaca bidix kulli aad eegtaa gaari hadduu kugu soo cararayo wax walba yani markaa adigun baa ka istaagaya adaa number 1 safetygaada mas-uulka ah marka miraayadda labada geesahana wayba ku qoran tahay digniin object in mirror closer than they appear waxaad meesha oga jeeda yani wax runa maaha yani haddaad freeway ku jirto ama magaalo socotid ama city town socotid haddaad fareejo daarto miraayadda fiiri then qoorta jabi then go-aan gaar waxay dhahaan c waxa waaye waa search evaluate execute kow raadi yani wixii ficilkii ha ku dhaqaaqin adoo ficilka wixii horta baar ma dad ma baaskiil ma gaari ma mooto then markaa go-aan gaar inaad leenkii bedelato laakiin haddii aad dhahdo fareejan daari waan wareejin isteersada hadda taa gaari 55 hadduu kugu dhaco yani will be deadly waa gastay marka taasi waa taas dhanka roobo badan ayaa jira dalkan gobolkan Minnesota barafna haddeertan waa ka baxnay marka qofka barafka iyo roobka ku socda especially habeenkii freewayga markaad saaran tahay mugdiga nalka markaa shidid waxa laga yaabaa roobabkii inaad aragtid taa
maxaad naga dhihi lahayd marka maxamed qaybta nalalkan ani aad ugu kulula hadda aad ka hadashay ma Waa ogtahay gartay, waa gartay. qof waxaad arkaysaa habeenkii nalalka iska hilmaamaya Waa gartay. ani dadkeena markaan arko mar badan waxaan la taliyaa gaari haddaad gadanayso Waa gartay. gaari waxaa jira automatic hormaaniga sida nalalkii asaa isidaaya waa investmentaad samaynaysaa ma ogtahay waxaa laga yaabaa gaari walbood gadan lahayd inaad choice yar aad samayso yacni raadsato gaari asi kuu daarmaya Waa gartay. haddaad laakiin gaari automatic aadan lahayn mar walbo isbar caado inaad adig gaarigaada daarato waxaad ku dareemi kartaa hortaada iftiin male mugdi everything gaariga cancelkiisa nin daraad wuxuu igu yidhi gaarigan cancelkiisa un baan fiiriya yacni meesha hore hadday meeshaan shidan tahay nalalkeygana way shidan yihiin waxaa waa been adoo yacni nalka haaf kuu daaran yihiin intana way shidnaan kartaa shidnaan kartaa. yacni inta ma kuu sheegta nalkaada inuu daaran yahay meeluu leeyahay 10 su-aal annaga qofka gaariga barayno 10 su-aal annagoo tusin gaari maba barnaba yacni 10kaa in la tuso yacni nalalka sidii loo daara wiperska heatka miraayadaha in lagu agaadsado emergency parking break yacni wixii waa wax simple ah qofkii laakiin haddii la tusin hadhow imagine qof roob da-aya wiperskii daaran karaynin yacni waa mas-uuliyo weyn hadday imaato qaybta snowga ama cimilada xun waa gartay the best advice haddaad dhahdo maxaad isiin lahayd maxamed cimiladiyaa xun in any way noqon kartaa ceeryaamay noqon kartaa barafay noqon kartaa roobay noqon kartaa dhinac xawaarahaada 30 hadday ahayd 15 ka dhig Saaca. 10 ka dhig waxa duruufta kuu masaamaxda yani ma aha yacni okay 30 ku dhegan meesha ma dhihi kartid yani waxa duruufta gaari yaraa wadataa nin gaari tragu wataa isku si ma wadi kartaan yani adoo duruufahaada eeganaya just slow down annaga alama driving school winterka hadduusan xumayn dadka gaari waan barnaa dad asoo qofka laysan leh xataa wuu noo imaan karaa wuu dhihi karaa maxamedow ila shaqee sidii loola shaqeeyo sliperiga yani gaariga intuu u iga wareegsanaya maxaa dhacaya maxaan samayn karaa technic inaan barno yacni aad iyo aad runtii weli barnaamijkii gabagabadiisa ayaana soo gaarnay maxamed Sax. runtii waxaa jira ugu dambeyntii aan ku weydiiyey xilligii waxaa lagu jira youthka sax barashada gawaarida aad bay ma arkay u badan tahay sax youthku runtii qofka oo youthka ay rabaa inay wax bartaan absolutely maxaa laga doonayaa marka qofkaasi inuu sameeyo inuu mawaalid ma u baahan yahay maxaa laga rabaa marka youthkaas naga sheekay bar youthka aniga maxamed ahaan alama driving school Waa gartay. in badan haddee dhalinyaro hadda i daawanaysa dhalinyaro badan yani ma aha yani qofkii ma shaqeeyo waa qofkii waa arday aniga waxaan u sameeya alama driving school qof hadduu u yimaado idhaha maxamedow aniga ardayaan ahay inaan discount siiyo ko haddii yani qofkii igala soo xiriiro meelo badan google ama facebook ama this ilmaha waad garanaysaa waa 2012 yani qofkii meelaha iga soo raaco waan geliyaa facebook aan geliyaa twitter aan geliyaa google aan geliyaa yani qofkii haddii meesha igala soo xiriiro in alama driving school discount badan ay u ballan qaadaysaan aadaan u support garaya any event youthka soo qaban qaabiyaan ha ahaato waxa youthka lagu support garanayo aadaan runtii aniga arday aan kula hadlaya some point waan fahmaya it's very difficult waa gartay waa hagaag daawadayaal dhegeystayaal intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii ku saabsanaa wadista gawaarida iyo khatarta ay leedahay qofka gawaarida wadi doona waxaad arkaysaa soomaali fara badan oo weliba maxamed hadda aan ku laabtay su-aashaas aana weydin teleefon halalkaa ugu jira jalbaabkii hoostiis ayaa teleefon ku jira teleefonkaasi dhibaatada ay keeni karto maxay tahay bal maxamed aan ku laabto mar labaad maxamed teleefonkaasi dhibaatada ay keeni karto maxay tahay marka wallahi teleefonka sida diintaba waad arki qofka laba qalbi ma leh waa gartay qofka hal qalbi un buu leeyahy waa gartay markaad gaari wadayso mas-uuliye weynaa ku saaran Waa gartay. yacni adig kaligaa ma aha dadka banaanka dadaa wadadii goynaya riigooyinkii dadkii inaada ilaaliso inaad nalkii fiiriso inaad staabkii fiiriso inaad dadkii fiiriso inaad baaskiilkii fiiriso inaad tareenkii waxaas ma isku keeni kartid haddaad teleefon ku jirtid qofkii wuu maqan yihi qofku hadda naagaha wayba dadaalenba aniga waan caashaqay sababta ku caashaqayo qofku hadduu gacantii kusii qabsado hal gacanuu gaarigii ku wadaa ayaga intayba gasteenba laba gacan isteersa waa big progress but laakiin anigu waxaan la talin lahaa maxamed ahaan anoo in badan wax ka og qofka waad wici kartaa dhinac u bax wadada istaag qofkii la hadal qofka fariinuu ku dhaafi karaa waa 2012 waa yani qofka inuu markaa la hadashid qasab ma aha 5 daqiiqo kadib waa la hadli kartaa qofkii freewaygii ka bax bad naftaadii ilmaa wadaa yani teleefonkii ku maqan tahay waa mas-uuliye xumo marka aniga in badan qofkii hadduusan ogeyn ani qofka waxausan ogeyn laguma qabsado laakiin qofkii og in waxaan khatar u keenayaan waxaan jeclay inuu iska dhaafo yani teleefonkaas qofka inuu dib aad u wacato qofku kula hadli karaa qasab maaha qofka inaad waqtigaa la hadasho
iyo qofka taleefonka inuu asna waxaan dad kalena waxaan haddii qofkii ku dhaho gaariyaan wadaya inaadan dhibin yacni qofkii hadduu hal mar fariinkaa qabo inaad 100 mar ku soo celinin ayadana waa wax meesha ku jira yacni qofkii inaad dahantid in yacni nolol leeyahy in gaari wado in you know off time me time you know qofka me time uu lahaan karaa sax waa hagaag daawadayaal dhegeystayaal intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa oo ku saabsanaa faa'iidada ay leedahay wadista gawaarida iyo dhibka uu ka imaan karo waxaan filayaa in dad badan ay ka faa'iideen maxamed alamo maamulaha alamo driving schoolna maanta aan filayo in aad soo booqan doontaan xaruntiisa haddaba isagoon weliba ii sheegin maxamed waxaan leeyahay daawadayaasha Somali My TV na daawanaya haddii aad ma aragtay barnaamijkan idinkoo daawanaya aad soo wacdaan waxa laga yaabaa haddaad dhahdaan Somali My TV ayaan ka daawaday maxamed wuxuu idin siin doonaa dhaqaale aad u fiican oo dhinacaasi TV-ga xaggiisa ayuu idin samayn doonaa haddii eeba yidhahdo tan iyo kulantadeena dambe oo xiise leh waa anigoo ah Liibaan Xuseen iyo Maxamed ba assalaamu calaykum waa hagaag intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu